السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتك وسود هذا وضياشي وحان ربنا غير مقدشو غير مقدشان ربنا هنا وعض على قبلنا أن دبك أسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وحالي هذا أبو بكر إبراهيم عمر. waxaan ka mid ahay dhalinyaradii waqtigii dawladda dhexe maanta la leeyahay yani Kriegitaris laakiin aanan ahayn Kriegitaris wanaag iyo khayr ku soo maray ama ku soo gudbay wax ku soo bartay xilliyadii wanaagsanaana soo maray ay tahay waxaan ka mid ahay dhalinyarada hadda dadka ku nool dhalinyaradii cuslaatay jaaliyada muxuu ahay Jidda Saudi Arabia qaasaan magaaladeeda Jidda waxaan aad iyo aad uga xumahay وأنا آدي أروح معي متصدن يكبدن إنه ودن كان كجرو استعمار قديسا وكسر السن حب قبيل وحنا مرينا يا دولة بدن إن يسوم مرينا دلكا ويكره قامنا ينمن محواي صومالي عم بناء كين ماي waxaan maraynaa dareenkii ugu wanaagsanaa oo ugu fiicnaa oo aan dareeno hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed khaas ahaan jaaliyada Sacuudiga degan inay ahayd nidaamka maanta taagan ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo xafidahullah muxuu ahay ilaa iyo maanta markii la gaaray gundhigii iyo guushiina ay marayso maanta in lugaha looga dhigay waxaan ka codsan lahaa ummadda maanta dadka maanta ku howlan inay dawladda baabi'iyaan ama ay muxuu ahay carqaladeeyaan ama ay ridaan ama ay dhibaatooyin oo aanan jirin ka hor keenaan waxaan ka codsan lahaa inay xasuustaan maalinta qiyaamaha waxaan ka codsan lahaa ummadda masaakiinta ee maanta dareentay wanaagga iyo sharafta iyo muxuu ahay xornimada iyo qaran toosanna aanan la carqaladeynin haddaan dib ugu noqdo taariikh ahaan aniga waxaan ka mid ahaa dhalintii ka baxday dugsiga sare ee Xamar kadibna macallin ka ahaa Kismaayo shaqadeeda qaranka maray meesha maanta xalana la yiraahdo oo 3 bilood ku jiray oo ahayd meel xasuus leh nin magac lana muxuu ahaa lagu magacaabay muxuu ahaa maantana ay degan yihiin taasa tusaale ah koow ay degan yihiin niman shisheeye ah marka waxaan dhihi lahaa walaalahayga ama madaxdayda qaranka ee soo martay dawladnimada ee wax ka soo qabatay dalka oo muxuu ahay dhihi maayo waxa ma ay qaban way qabteen waxyaabo badan way qabtay waxyaabo badan way ku qaldeen qofka insaanka ah waxna ku qaldama waxna ku saxsay in aysan fiirinin oo kaliya danahooda gaarka ay fiiriyaan shacabka dantiisa iyo qaranka dantiisa iyagoo u hiilinaya qarannimada wanaaga iyo sharafta Soomaalinimada waxaan u maleeynaa haddaan dib ugu noqdo qabadka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa qabad la taaban karo waxaa kamid ah dhismihii ciidamada waxaa kamid ah dhismihii magaalada waxaa kamid ah kala dambeyntii inay xoogaa yar rajaa soo yeelato waxaa kamid ah waxyaabo badan oo maanta wadanka ka maqnaa ama maartay dad hore luusaday inay dib u soo noqonayaan waxaan kaloo leeyahay qiimihii xitaa baasaboorkeenu inuu soo noqday qiimihii muxuu ahaa shacabkii Soomaaliyeed inuu soo noqday marka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal dhammaantiin horta ilaahay maartay Ramadaan Kariim inkastoo aan marka hore ka hilmaamay Ramadaan Kariim iyo ciid iyo naga xigto wax yar insha Allah ta'ala hadii ilaahay nabad naga dhigo waxaan leeyahay inay u kacaan in dalkooda iyo dadkooda iyo muxuu ahay qarannimadooda iyo qiimahoodaba ay muxuu ahay ku dadaalaan sida uu dhismi lahaan lahaa haddii kale waxay noqonaysaa in meel dheer shalay meel dheer bay tagtay oo ay fog goda maantana inay meesha meel ka xun tagtaan ka baqaaya waxaan kaloo leeyahay siyaasiyiinta ku howlan inay dawladda carqaladeeyaan oo ay muxuu ahay dhibaan ama kuwa baarlamaanka ku jira ama kuwa maartay dhinac kale ha ahaadeen wax yar oo xusuusa gadaal ugu noqdo taariikhdiina sidee tahay nadiifa mise waa wanaagsan oo xunta ma fahanti marka walaalayaal waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed haddii aad rabtaan danta Soomaaliyeed oo aad rabtaan wanaagga Soomaaliyeed 30 sano meel kala qoqoban iyo nin kasta oo meel haysto waanu soo marnay oo aan maleynayo sheekooyinkii caalamka qaarkood meelaha ka socday dawlado badan oo naga dambeeyo dagaal galo ka baxay jira oo ka heshiiyay oo dawlad samaystay oo wax samaystay oo heer gaaray oo horumar laha annaga inta noo taalaan ugu filan
baddaa nagu filan beeraha nagu filan xoolaheena nagu filan wax kasta oo markaas aan leenahay khiyaaraada waad ogtihiin waxaan idinka codsan lahaa inaad geergaar iyo kaalmo iyo garab istaag mid kastaba aad siisaan xukuumaddiina wanaagga badan ee khayrka badan ee maanta aad arkaysaan meesha ay marayso inta jeer ee uu tanaasul sameeyeyna waad arkaysaan taariikhda haddii dib aan ugu noqonana taariikhdaa xusi doonta haddii aan la yidhaahdo okay aan ka dhexgala qaranka ka hadashay hadda qaran meesha waxaa lagu soo qaybsaday 4.5 marka qaran iyo qabiil waxaan leeyahay horta kelmaddan 4.5 ka laftarkiisa ka soo horjeeda sababtoo 4.5 ma jiro nin ka sarreeyana ma laha nin ka fiicanna ma laha ilaahay ummadda waa simay qabaa'ilka la sheegayana in la isku aqoonsado baa loo sugin lagu dagaalamo la isku dilo la isku baabi'iyo dawladdu waxay ku salaysan tahay qabiil lagu soo kala qaybsaday 4.5 waa nin kasta wuxuu ku leeyahay xaqayga inaan helo waa waajib cidna iguma talin karto xaqayga waa inaan helaa anu nin gaara ma sii wajahay laakiin qabaa'ilka soomaalida ma aha qabaa'il kulligood wada waa dad gaar ah waa dad loogu bartay markasta inay sameeyaan fuudaha noocaan waa dadka qaarka ee loogu talagalay u samaysman inay sameeyaan carqaladaynta xukuumadda ilaa tii cabdiqaasim salaad aan ka soo bilowmay ilaa iyo tan maanta taagan intaba dadka daba taagan waa la ogyahay inuu hebel dhihi maayo maxaad dhihi lahayd dadka baasaboorka ajnabiga warta oo soomaalidu diidan inay gaaraan horumarka dalka wallaahi dadka baasaboorka ajnabiga warto berri haddii dhib dhaco dadku ugu horreeya aeroboortka ka dhoofaya waa iyaga ama hadday ka bixinna intay lugayaan ay waddamada kale ka dhoofayaan waxaan leeyahay walaalayaal ummadda soomaaliyeed difaacda qarannimadeenna iyo qiimihiina iyo muxuu ahaay wanaaggiina haddii aadan difaacanina wallaahi billahi taala wala liyaaba insha allahu tacaala saasaan maleynaa laakiin ilaahay ha idinka badbaadiyo dhibaato kastoo idinku soo socotona rabbi ha idinka xijaabo marnaba waddanka waa markii ugu horreysay aan rajo yeeshtay inaan waddanku soo noqdo haddana waxaan arkayaa waxa ka socda waddanka marka ma aha mid maaragtay aan usoo bogo aan dhihi karo 30 iyo ka dheer baan ka maqnay habeenkii siyaad bar uu ka baxaan ka baxay ma ihi qabaa'ilka la iirsanayna ma ihi waxaan ahay nin 4.5 dadka lagu tilmaama laakiin aanan ahayn anigu 100 qofbo malaayiin iyaga ka mid aan ka roobay kuwa tilmaamay 4.5 4.5 inuu tirtiray ahayd maxamed cabdullaahi farmaajo hadday ku egtahay insha allahu tacaala in la baabi'iyay ahayd dadkii aqoonta lahaa ee qiimaha wadaniyadda ku jirtayna inuu u magacaabo meelaha qaarkood maaha inuu u magacaabo kuwa qabyaaladii aan ka dhexgalo TFG laga soo bilaabay federaal lagu xijiyay shacabka waqtiga ay dooran lahaan one vote one man la jooga dadku waxay ku eedeynayaan madaxweyne farmaajo in shacabka Soomaaliyeed waqtiga ay dooran lahaayeen 2 sano kale uu ku darsaday extension dadka ma aha shacabka ma aha shacabka uma arka taas shacabka haday yihiin waa shacab loo soo qaybiyay dollar iyo $2 kuwaasaan mudaharaad meelaha ka sameeyo oo dadka la tusaaway laakiin waxa waaye dadka Soomaalida ay dhabta ee muwaadiniinta oo wanaaga badan oo jecel wadankooda inuu hor u maro kuma jiraan nooca ay tilmaantay maaha dad gaar ahaana wata sheekooyinka noocaana Soomaaliya inay israacdeen baa la arkayaa Kenya kuma rabto inay israacdo Djibouti oo yaamahan daba soo baxdo kuma rabto iska badaa dadka Imaaraadka wax la yiraahdo weligeed Djibouti kuma rabeen weligeed Djibouti Soomaalidu way xirxirtaa maya way suubisay shacab Djibouti waa rabaa maya shir way jirtaa shir ay sameysay isku imaashay sameysay shacab Djibouti hal qof Soomaali kuma nool Djibouti way jirtay sida Kenya Ethiopia ay u nool yihiin Djibouti kuma noola intay siyaasaddan markii dambe isbedeshay may weligeed basaas ay ahayd waxay xirtaa waxay geysaa ala sabiix station waa xirku no Soomaali kuma lahan dukaamo kuma lahan Djibouti Soomaali waa lagu xiraa Soomaali safaarad weyn kuma laha sida ayaga ay u leeyihiin safaarad weyn inaad ardaa isqiimeen weysid oo aad qiimeen isku yeeli weysid iska daa meel kasta waddankaaga lagu gumaysanaya meel kasta lagu gumaysanaya shacabka soo Turkiya dadka jooga maanta dhibaatooyin bay la kulmaan hadda la Turkiya hadda qiimihii aad yeelan weysaa lagu sida ساديه hubka Soomaaliya soo daadgureynay sida Mareykanka Ruushka oo kale maanta hub badan far badan uu keenay Ruushka Amerika ciidamo far badan uu keenay waa ogtahay Turkiya saas oo kale waxa ku jira dalka ciidamo 22 kun gaaray oo ciidamo AOU maxaa ka dhihi lahayd in Soomaaliya kaligeed inay waxqabsato Soomaaliya nin raba ma laha hal dawladood oo rabta ma laha inay labadooda isku taagto Soomaaliya dana gaar ah laga leeyahay in sida u burbursanaataa la rabaa intii tashan lahayd isugu imaan lahaydna lacag baa lagu foondaaraya oo la leeyahay lacagta qaadatay dawladda baabi'i u dumay tan kalifaysa taas nin raba ma laha Soomaali midaysan sababtoo waxa la ogaaday 77 markay dagaalka qaadeen
you know ay waa ogtaan maraynaya Aad iyo aad. 90 kilometer baan aad sabab u soo jirsanay qiimihii qarannimadii aan lahayn waa idin muuqataa saas darteeda waxaa la ogaaday wadan muslima oo 100% ah muslim ah ee ku duulay wadan 50 milyan markaas ay ahaayeen anaga 7 milyan aan ahayn Alright. inta ku duulay ka qabsaday ilaa dhul baaxadiisa intaas la eg tahay ee 90 kilometer aad sabab u jirsaday Afrika waa dowladda kaliya aan lagu gumaysanin hadda dardaaranka gabagabadii Ethiopia waxay ku noqotay ceeb iyo fadeexad waa laga soo gaaray hadda dardaaranka gabagabadii maantana haddii inta ka fiican gaarto waxaa la ogyahay inay Afrika oo dhan ba qabsan karto hadda laa dardaaranka inuu South Africa nahay anaga alright you see marka waxa waaye waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dardaaranka alla dardaarmaya waxay tahay inay hil iyo hoob kula garab taagnaadaan dowladooda ay iska ilaaliyaan waxyaabaha ridaya ama baabi'inaya ama dhulka muxuu ahay la galaya wadanka nabad baa naas la nuuga leh haddii la waayo wallaahi cid kasta leedatul qadar lagu jira masaajida in loo istaagan qabiil kasta in loo duceeyo waa carari doonaa marka sidii shalay loo cararay shalay nimaan cararin mar waa yari ma fahamtay waxaan leeyahay culimada Allah khayr siiyo dadaalkooda ma yara meel kasta oo ay joogaanna way dadaalaan haddana waxaan ka codsanayaa ashar al-awaakhir lagu jira ramadaanka inay u duceeyaan dowladdaas lagu istaago qiimaha leh qaayaha leh u baahan in la garab istaago dadaalkeeda si ay u sii kordhiso hadduu soo noqdo farmaajo haddii nin kale oo isaga ka duwan buu yimaado kolley dhib ma laha Soomaali madaxweynaha dowladdu bay u baahan tahay laakiin mar kastaba loo duceeyo qarankii iyo dalkii iyo muxuu ahaayay inta la iibsan lahaa qaar baa la iibsaday nin waxa arkaya aniga Yurub joogo oo dhahaya baddaas haddaan iibsanay inta kalena anaga wax kalena waan iibsanaynaa markuu iibsanayo waa kuwa kale markay soo noqdaan waa kuwa maanta caqada markay soo noqdaan ayuu qaybta kalena iibsanaya war wadanka yaan laga iibsanin war wadanka waa qaali war wadanka qiimo leeyahay qiimihiisa waxa ogaan kara ninka dibadda Soomaaliya qaran iyo muxuu ahaay isma qaataan qabiil ka fogaada qabyaalada kuwan la soo foondaareeyay ee gobolada ka soo baxeen iyo ciidan bay ka soo ma arkin aniga ciidan raacaya mucaarad aan waxba ahayn ما أركن عيدا أنت العقل السيء كسر بحاجة ماشي قبل العقل وقبل القاعدة مركز سومالي وزيرك وحكم شيء أنت أنا درواي وزيرك أرمى عدالة درد ويل رحبنا قوري وقتي والحري هو يدي سماركتي لكاني قوري والجودي حبسك وصار الناس قرنا هذا قرياش ربحان هم كواوين ربحان عدالة الله مرة مميات وزيرك إعلان عدالة والله وحنقول شيء يا شيخ سرقة هذا كل فهم سنين هدي ما أنت أفرت السنة كله شربك لو مرة مميات هدي أفرت السنة ما أنت فرماج لو قدر لها هو شيء يصير ما أنت كنا نقلق جدا إن الدولة يستأكتوا كل واحد حبس بها الله ما كانوا كل شيء وايو وحاس أولم جدا وصل والله مثلا ديمقراطية ما يكمل تحي قولن إن الحين ما ديمقراطية وحكمل تحي نيك الدولة كهوري مادة إن لما ريا أبال كيس وايو شعبك يقرن كيو بابينا أقول السؤال يوديني تدي جلالو ومحسنت هذا ومحسنت هذا أسبوع أنا يرد أصلاتي إن جالية ذلك جدا أنت أستقبل قبلنا يا واحد عندي رمضان مبارك رمضان كريم